saadaasha sanadkan gugani waxa ay maaragtay ay noo sheegaysaa in boqolkiiba 45 uu roobku ka badan doono intii gugi caadiga ahayd. taa macnaheedu waxa weeyaan waxay keeni doontaa oo ay maaragtay aynu arki doonaa roobab badan oo xaddigii hore ka badan boqolkiiba 50 dooxyada biyo mareennada la furo oo maaragtay la baneeyo oo maaragtay beerahana aad looga taxadiro waayo xaddiga soo maraya dooxyadu wuxuu ka badan doonaa boqolkiiba 50 intii hore mari jirtay caadiga ahayd. maanta annaga aad isugu kin yeernay waxaanu jecelnahay inaanu halkan aanu ka dirno fariin wacyigelina. marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh raxmaddii roobka inagu manaystay oo inoo shubay oo runtii dhammaan gobollada waddanka oo dhan badankiisu ay raxmaddaasi ay gaadhay oo ka bilaabantay in yaroo ka mida mooyaane aanaynu rajaynayno inay dhowaan inta kale harsanna hadduu ilaahay idhaahdo ilaahay raxmaddiisa uu gaadhsiin doono. horta marka koowaad ilaahay baynu mahadnaqaynaa. mar labaadka wasaaradda horumarinta beeruhu waxa mandatekeedu yahay in ay saadaasha ay maaragtay la wadaagto dhammaan bulshooyinka reer Somaliland gaar ahaan beeraleyda oo iyagana aanu maaragtay fariin wacyigelina aanu uga dirnay halkan wasaaradda 2 week ka hor. marka waxaan doonayaa marka koowaad inaan runtii ka warramo waaxda saadaasha ee wasaaradda horumarinta beeruhu waxay mas'uul qaranka uga tahay in ay saadaasha roobka sanad walba ay maaragtay xogteeda soo ururiso kadibna la wadaagto dhammaan bulshooyinka reer Somaliland. si gaara waxa u rajiskaraysan ama wasaaraddu ay gacanta ku haysaa 64 goobood oo laga maaragtay laga rajiskareeyo ama laga qoro laga ururiyo xogta roobka. 64 ka goobood waxa jooga oo shaqaale wasaaradda horumarinta beeraha ah oo waxa weeye gobollada kala duwan iyo magaalooyinka ilaa tuulooyin heer tuulooyin ayaa qalabkii ay ku rakiban yihiin saadaasha hawadu hadday roobkii tahay iyo hadday heer kulka tahay. sidaa daraadeed saadaasha sanadkan gugani waxa ay maaragtay ay noo sheegaysaa in boqolkiiba 45 uu roobku ka badan doono intii gugi caadiga ahayd. taa macnaheedu waxa weeyaan waxay keeni doontaa oo ay maaragtay aynu arki doonaa roobab badan oo xaddigii hore ka badan boqolkiiba 50 oo haddii tusaale ahaan 80 millimeter uu ka dii jireen goob kaliyaata sida Hargeysa oo kale waxaan filaynaa imika waxa weeyaan 120 millimeter in ka daa. marka waad arki karaysaan xaddiga biyaha roobka ah ee aynu filayno imika. sidaa daraadeed waxaanu jeclaan lahayn inaanu ka wacyigelinno beeraleyda oo u diyaar garoobaan inay beerihii ay biyahaasi kaga faa'iideystaan imika bilaabaan hawshii beeraha ee falistii beeraha. sidoo kalena dhammaan bulshooyinka reer Somaliland iyaguna ay samaystaan dhaamamkii iyo waxyaabihii ay ku qabsan lahaayeen biyahaas intii karaankooga ninkii moos samaysan karaya moos samaysto ninkii maaragtay dhaamyar ama gacanta ku qodan karaya ku qoto ninkii barkad yar samayn karaya uu samaysto. wasaarad ahaan annaga laftigeeguna wixii dadaalo waan geli doonaa. diyaar garowga maaragtay dalag iyo wax soo saarka waxa weeye wacyigelinta koowaad bay noo tahay. arrinka labaadna waxa weeyaan in maaragtay dooxyada biyo mareennada la furo oo maaragtay la baneeyo oo maaragtay beerahana aad looga taxadiro waayo xaddiga soo maraya dooxyadu wuxuu ka badan doonaa boqolkiiba 50 intii hore mari jirtay caadiga ahayd ama boqolkiiba 45 ilaa 50. sidoo kale cayayaanna laga yaabaa inay maaragtay ay ka dhashaan sidii deertii iyo maaragtay ayaxii iyo taa laftigeedana inaad wasaaradda maaragtay numberka gaaban ee wasaaraddu leedahay 9269 ama 9669 ay kala soo xiriiraan wasaaradda wixii wacyigelina ama wixii maaragtay looga baahdo in maaragtay la idinka caawiyo. sidaa daraadeed waxaanu jecelnahay bulshooyinka reer Somaliland in ka foojignoodaan roobabka aynu filayno. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nimcadiisa nimco khayr qabto oo inooga dhigo.